سلانسر saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada muuqaalka xigeeyo IM252 waxa wax cad ah sida cadceed oo kale in kombiyuutaradu ay ka awoodi xawaare badan yihiin telefoonada waayo marka laga soo tago kala duwanaanshaha qalabyada ay ka kala samaysan yihiin kombiyuutaradu waxay leeyihiin qalabyo aad u badan oo lagu xiri karo kuwaas oo loo isticmaalo ujeedooyin iyo siyaabooyin kala duwan hase ahaatee taasi kama dhigna in telefoonadu aysan awood u lahayn inay ku xirmaan qalabyada kombiyuutarada lagu xiro qaarkood intii daawatay muuqaalkii kan ka horeeyay aan laba telefoon isaga jaajareynay waxaad soo wada aragteen inaan isticmaalay qalab loo yaqaan OTG kaasoo aan hore u soo sheegay in helistiisuna ay fududahay qarash ahaan aanu ka badnayn $1 ilaa $2 muuqaalkanna waxaan ku isticmaali doonaa isla OTG-gan oo wax qalab dheeriya uma baahnin waxaan kala hor u soo sheegay in OTG-gan uu awood u leeyahay inuu la shaqeeyo inta badan telefoonada Android-ka ah sidaa darteed haddii telefoonkaagu leeyahay awoodda la shaqeynta OTG-ga waxa uu telefoonkaagu leeyahay awoodo badan oo laga yaabo inaadan adigu ka warhayn waxaan kugu hambaleynayaa in telefoonkaagu awood u leeyahay inuu ka tallaabo xuduudda telefoonnimo una tallaabo xuduudda kombiyuutarnimo waxaana telefoonkaaga ku isticmaali kartaa qalabyo badan oo laga yaabo in markaagii hore aad kaliya ku isticmaali jirtay kombiyuutarkaaga balan haddeer kor u qaadno awoodda teleefoonadeena kuna adeegsano qalabyo badan oo ay kombiyuutaradu caan ku ahaayeen markii hore saaxiibada qiimiga badan oo markaad OTG-ga geliso telefoonkaaga waxaad arki kartaa in qaybta dambe OTG-ga uu yahay USB port taasoo kala mid yahay godadka ay kombiyuutaradu leeyihiin ee loogu talagalay in laga geliyo falaashada keyboardka mouse-ka iyo wax walba leh USB taas waxay ku suuragelinaysaa in qaybta dambe OTG-ga aad ku xiri karto wax walba leh USB inkastoo aan kuula talinayn in qalabyada qaar aad ku xirto sida external hard disks oo kale haddana badanaa qalabyada kombiyuutarka ku xirma qaybta USB-ga waa ay ku xirmi karaan qalabka ugu horeeya kombiyuutaradu aad ka caanka ugu yihiin aan hadda rabo inaan ku xirto telefoonkeyga waa keyboardka oo keyboardka ayaan ku xiri karaa telefoonkeyga si aan u xawaareeyo qoraalkeyga balan hadda keyboardka ku xiro telefoonkeyga waxaad u jeedaa in halkan uu leeyahay keyboard connected ama waxa lagu xiray keyboard haddii aan ka tijaabiyo dhanka keyboardka laftirkiisa waxaad u jeedaa in keyboardka uu ku xiran telefoonka uu shaqeynayo waxaan hadda furayaa mid kamid ah barnaamijyada telefoonka ku jira ee loogu talagalay wax lagu qorto tusaalahan hadda waxaan furayaa Microsoft Word-ka telefoonkeyga waxaad u jeedaa in xawaaraha aan ku qoray haddeer uu mar walba aad uga badan yahay xawaaraha aan ku qori lahaa markaan isticmaalayo keyboardka telefoonka kaliya keyboardka looma adeegsado in aad wax ugu qorato telefoonkaaga laakiin waxyaabaha kale aad u adeegsan karto waxaa ka mid ah sida caadiga ah arrow keys-ka kale inaad isticmaasho haddii aad tusaale ahaan taabato escape macnaheedu waxay tahay dib u laabo haddii aad enter dhahdana macnaheedu waxay tahay hore u sii soco oo hawshan qabo waxaan tusaale ahaan furayaa gallery-ga haddii aan arrow keys-ka isticmaalo waxaad u jeedaa in sawirada aan si fudud isaga kala gooshi karo qalabka labaad ee rabo inaan telefoonkeyga ku xiro ee kombiyuutaradu caanka ku yihiin waa mouse-ka waxaad u jeedaa haddeer in mouse-ka halkan uu ka muuqdo haddii aan rabo waxaan double click siin karaa hal eray haddii aan rabana waxaan dooran karaa guud ahaan qoraalkii haddeer aan qoray markaas waan awoodi inaan xitaa ka bedeli karo waxyaabaha qaar sida colorka oo kale haddii aan dhaho right click macnaheedu waxay tahay back ama dib u laabo qalabka saddexaad ee kombiyuutaradu caan ku yihiin aan hadda rabo inaan telefoonkeyga ku xiro waa flash disk waxaad u jeedaa in isla markii uu soo furayo flashka si aan uga faa'iideysto flashka oo wax ku jiray aan kala baxo ama aan ku koobiyay wax telefoonkeyga ku jiray waxaan hadda tusaale ahaan sameynayaa in aan koobiyeeyo wax ku jira telefoonkeyga oo aan dhaho copy kadib wuxuu leeyahay copy to ama halkee ayaad ku koobiyeynaysaa marka hadda waxaan dooranayaa USB storage kadib waxaan leeyahay done
markaad telefoonkaaga geliso flash disk waxyaabaha aan rabo inaan ku xusuusiyo ayaa waxaa kamid ah ha ilaawin in aad qaybta notificationka soo furto kadibna aad halkan dhahdo unmount waxaa laga yaabaa haddii aadan unmount dhihin in xogta telefoonkaaga ama xogta ku jira flashkaaga ay ku dhacdo wax la dhaho corruption ama ay hadhow ku shaqeyn waayaan ma ahan kaliya in keyboardka mouseka iyo flashada kaliya aad ku xiri karto telefoonkaaga waxyaabo kale badan ayaad u adeegsan kartaa sida USB hubska oo hal mar ayaad waxaad ku xiri kartaa keyboardkaaga iyo mouseskaaga si wada jira kuma hadsan saaxiibka qiimiga badan oo inaad halkan ku soo gaartay daawashada muuqaalka haddii aad kamid tahay dadka soo iibsaday ama hore u haysan jiray OTG-ga fadlan sawir ka soo qaad ee qaybta hoose ee comments-ka nagula wadaaq qaabka aad uga faa'iidaystay OTG-gaaga sidoo kale ku taagaray oo ugu yeer qaybta hoose ee comments-ka asxaabtaada gaarka ah una sheeg in taleefankooda ay u adeegsadaan sida kombiyuutarkooda oo kale mahadsanid mar kale iyo mar kale guuleyso